nabadu inay macaan tahay nin walba waa ogsoon yahay. nabad waxaa saldhig u ah cadaalad. cadaalad marka la helaa nabad la helaa. nabad marka la helana horumar ayaa la gaadhaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. daawadayaal meel walba oo joogtaanba kusoo dhowaada barnaamijkii qurbo joogta. barnaamijkan alaaba waxaan ugu talagalnay inaynu qurbo joogta kaga faa'iidaysano aqoontooda, xirfadahooga iyo waayo aragnimadoodaba. haddaba barnaamijkan maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa qaybtii saddexaad ee xuquuqda shaqaalaha dalka jamhuuriyadda Jabuuti, ana qaybtii ugu dambayse. barnaamijkan waxaan ku soo marti qaaday oo maaragtay qaybihii horeba igala qayb galay oo taariikhda nooga soo sheekeeyey waxa weeye waa Saciid Maxamuud Xasan. barnaamijkan qaybta saddexaad waxa uu ku saabsanaan doonaa xuquuqda shaqaalaha boorka Jabuuti oo gudoomiye Saciid Maxamuud Xasan uu gudoomiye ka ahaa muddo dhowr iyo 10 sanadood ah. gudoomiye ku soo dhawaadeer barnaamijka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدير وانكو سلام يا دمان وحن سلام يا دادك دقيسان يا أم كو دقيسان دونا واندو هنا. adeer laba qaybood oo hore ayaanu ka soo sheekaynay. qaybahaasi waxay ahaayeen maaragtay waqtiyadii la aasaasay ururadan shaqaalaha iyo jaranjarooyinkii ay soo mareen. maanta qaybtan saddexaad waxa ay ku saabsan tahay, khaas u tahay waxa weeyaan adiga guddoomiyenimadaadii ururka shaqaalaha boorka. bal noo bilow bal ururkaas waqtigii maaragtay aad bilowday iyo de qaybtii saddexaad noo bilow hadda adeer. way maqlaysaa adeer? ها وانكو مقلي أدير ها. ha qaybtii saddexaad noo bilow gaar ahaan maaragtay shaqaalaha boorka. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. waxa weeji markay dhibaatooyinkii bateen isfahamkii adkaaday ee dhibtii dadka xuquuqda shaqaalaha doonaya ku dhacday ee aad u fara badatay ee la isfahmi waayey amba ha noqoto kuwii loo shaqaynayay amba dadkii shaqaalaha metelay ha noqoto markay hawshaasi adkaatay waxay noqotay in laba qaybood baa loo kala baxay. qayb wixii hawshii gacmaha ka qaaday amba dalka dhexdiisa ha joogaan amba dibadaha ha u qaxootiyoobaan oo ka socotay oo haddii toole buulka ka gashay hawshii ay u xidheen ee inay danta shaqaalaha dafacaan hayeen. iyo qayb iyadu u xidhatay dagaal oo dagaalkii uun xal mooday oo diiday maarkas wara hadal iyo inay wax ka tanaasusho. kuwaasi markii dambana waxay ku dambeeyeen inay noqdeen dad siyaasiyiin oo xaggii siyaasadda oo bay markii dambana galeen. haddaba anagu waxaan isweydiinay guddigii shaqaalaha boorku waxaan isnidhi war heedhaha labadaa dariiq mahayna muu dariiq saddexaad noo furnayn. markaa talo badan iyo isweydiin badan markaan geysanay een ka fikirnay waxaan ogaanay oon isla garanay inaan dantayada anagu danta shaqaalaha boorka ayaan u qaabilsanayn inaan ka heli karno shirkadeeda dhexdeeda. oo waxaan samaysanay qorshe odhanaya shirkadda wixii aan baahi leenahay amba wixii suurtagala amba wixii xaquuq naga maqan han weydiisano madaxda boorka. iyaga laftigooga waxaa dan u ahayd anagu wixii shaqaalaha shaqaysanayn amba wixii dhibaato geysanayn amba wixii shaqada ka maqnaa inaan waanino. marka waxaan samaynay guddi odayaala oo wixii waana shaqaalaha dadka maarkasa baraarujiya wax u sheega dantu waxay tahay tusa. marka waxaan qaadanay qaraarka odhanaya wara xaajood aan ka bilowno boorka madaxda boorka aan la xaajoono aan wax weydiisano inagoo degan oo dhib iyo dhibaato midna aanan doonayn danta dadkan metelan sida aan ku ilaalino. hankana caaganaano wax kasta oo keenaya inay maarkasa dadka kala qaybiso amba ay isku dirto sida siyaasadda sida qabiilka sida maarkasa wax bursiga oo qofka dadka hor jooga isagu wax qaadanayo oo dadka qadinayo waxyaalahaana aan ka digtoonaanaan sinreeytayadii guddiga ku jirtay ee anigu madaxa ka ahaa. dabadeed hawshii markaan galnay ilaahay wuu nagu guulaysiiyey wanaag badan baan ka dhaxalnay. waxaanan xaggan caawa ugu mahadnaqayaa axmed aadan ducaale oo director generaalkii ahaa boorka oo wax badan aan wara shaqaynay wax badanna noo ogolaaday ana shaqo wanaagsanna dhex martay iyo dadkii ka kaaliyaashiisa ahaa. wixii koowaad haddaba aan ku guulaysano
waxaan xaggan ku soo qaadi doonaa 10 shay oon gudaha kaga guulaysanay oon helnay oo dan u ahayd shaqaalaha aanan dan u ahayn qof iyo 2 iyo 3 aanan dan u ahayn madaxda ee u ahayd dan shaqaalaha boorka oo idin oo maantana dadku ka faa'iideystaan ilaa maanta aan joogno tii koowaad waxay ahayd dadka boorka ka shaqeeya dad bay miishaaradooda 17,500 ahayd qaarna 20,000 bay ahayd miishaaro aad u yar bay ahayd miishaaro dadka wax u goynaysa ma ahayn waxaan 17,500 yaa mishaarahay yaa mishaaradi simiga wadanka u yaalay ahayd bari dhawaytaa la bedilay intii hore oo idil qofku wuxuu ku qasbanaa qofka shaqaalaha qoranaya shaqaalaha hoose intaa uu ku qorayay haddaba anagu dacwadda aan samaynay dacwaddaasi wanaagsan oo edeb leh oo sharaf leh oo howlo tusaale leh oon tusana directeerka waxay tahay iyo waxay qabanayso wuuna la qaatay wuxuu baabiiyey miishaarooyinkii 35 ka yaraayo idil wixii 35 ka yaraayo idil buu boorka baabiiyey marxab qofkii 35 qaadanayay 40 baa looga dhigay qofkii 40 qaadanayay waxa looga dhigay 49 gabadha dhulka masaxda ee awaltoola marka boorka la qoro amba 17 ku lagu qoray amba 20 ku lagu qoray waxa marka wixii ka dambeeyay lagu qoray 35 waxay arinkaasi taabtay 350 qof oo shaqaale ah yaa maalin quraata mishaarada loo biiriyay oo ka faa'iideystay arinkaas oo arinka ka faa'iideystay taasi tii koobaad baxay marka anagu waxaana dhaqaajiyay ee arinka nagu kalifay in arinkaas inaan ugu horreysino mudnaanta siino de waxay ahayd dadku si ay u noolaan karaan oo maciishada u iibsan karaan tii labaad waxay noqotay wax shaqaalaha oo idil ka ugu hooseeya ilaa ninkii ugu sareeyay khusaysa waxaan weydiisanay in 3 bilood mishaarada nin kasta oo shaqaalaha mishaaradiisa markuu sanadku bilaamo loo qadimo inta sanadka gudihiisana laga gooyo taasi waxay keenaysay inay dadku ka maarmaan baanankay wax weydiisanayeen ta kale inay wax ku qabsan karaan ninka ka soo qaad 100 kun qaadanayo mishaara ah bisha koowaad sanadka wuxuu dalbanayay 300 kun baa la siinayay 300 kun 25 kun baa bishiiba laga goynayay 12 bilood sanadku ku soo celinay 25 kun baa bishiiba laga goynayay ma dul saarnayn wax dul macaash ma dul saarnayn wax warwareegana ma lahayn waxay ahayd si toos oo u qaadan karo taana waxaan ugu talagalnay in dadku noloshooda ku maareeyaan oo wax kaga bedilaan dad badan oo guursanay bay wax u tartay oo guurkoogii talaabo ka qaadatay dad badan baa guriga ka dhistay oo balbalaynta jaga ka iibsadeen dhisan kare looxaantii qaatay marka taasina qaybta labaad bay ahayd dadka shaqaalaha oo bay wara taabatay qaybtii saddexaad haddaba waxay dhacday qaybta amaahda 3 bilood waana laga gooyay markii wadanka dhibaatadu ka dhacday ee mishaarooyin la waayay ee dhulkii kala bilaabay mishaaro 5 bilood ahaayeen waxaana laga yiri war heedhaha de iniga amaahna siiya dadkii kale waa bilaabay mishaaro wax socon sameeyay waana laga joojiyay waxa la yiri dadka wax la qaba inkastoo inuu wax weyn ahayn anagu markay taasi timiday waxaan iri talaabadii aan qaadnay joojinayay waan wadanaa waxaan u tagnay baa mushtarka wadanka ee magaalada dhexdiisa waxaan la sameeysanay xidhiidho waxaan sameynay in alaabta aqalada lagu dhiso iyo alaabta lagu aroos galo iyo alaabta qaboojiyaha iyo kimaad tijaarada leh inay shaqaalaha iyaga siiyaan boor mishaarada uga gooyo marka boorkuna mishaaradiibu yu صاحب hadda ku arkaya waxoogaa adeer kor yar hagaajiso telefoon baa soo galahay waka sax hadaba waxoogaa kor u yar qaad kaamirada yar waka sa haday waka waxaan weydiisanay alaabihii baad weydiisateen dadkii baa mushtarka ayaa tiri dadkii baa mushtarkii baan xiriiro la saxeexnay si ay shaqaalaha iyaga u amaahiyaan alaab waxay u baahan yihiin amba tu aroos ha noqoto amba tu aqal lagu dhisnay ha noqoto amba tu wax lagu qaboojinay ha noqoto oo boorkuna ugu gooyo boorka dhexdiisa lacagtaas sababtoo ninka baa mushtarkii wuxuu ka cabsoonaya wax weeye in lacagtiisii u soo noqon weydo marka anagu waxaan siinay kalsoonida buuxda boorkiina waxaan kala heshiinay inuu misaarada qofka amaahda qaata uu boorka uga gooyo uu dadkii lahaa siiyo
taasina waxay noqotay qaybtii saddexaad een dadkaas wax ugu qabanno tii afraad een ku guulaysano een iyadana shaqaalaha iyaga ugu qabanno waxay ahayd qof kasta oo dhinta boorka oo shaqaale ka ah boorka amba wiil ha ahaado ama gabar ha ahaado inuu boorku ka qayb galo aaska qofkaas inuu 150,000 marka aaska la maqlaba la siiyo kolka anaga qolada muhiimadda noo ahayd waxa weeye miisaaniyadda boorka laga bixinaya 150,000 yaa laga bixinayaa miisaaniyadda boorka laga bixinayay isla meelkaana waa la siinayay guddi baa soconayay waa loo geynayay baabuur amba wixii la haday wax baahi kala jirtana waa laga gargaaray waxaa noo keentay taas qof danyaro ah oo abaawarihii ka baxay oo geerid ku timiday oo lacagna haysan sababtoo waa naqaanaa dadka reer Jabuuti dad lacag dhigta ma ahin ee barna badan ma laha taa aawadeed baan haddana damacnay inaan dadka wanaaga kala u samayno oo markay ooridu odagii u shaqaynayay weydu inay hesho gargaar garab ay hesho oo xaggaana taa aan ka gargaarno tiina ilaahay wuu naga aqbalay boorkuna 150,000 buu siin jiray siyaana qof kasta oo boorka ka dhinta isla maalintaa baa loo geeyaa isla miracle la maqlaa loo geeyaa haddana waxaan garanay warde wax isii oon odhanin inigu maxaad qabsan kartiin annagu waxaan qabsanay haddaba 1,100 qof baa boorka ka shaqaynaysay markaa aan arrinkaa dhignay 1,100 qof boorka ka shaqaynaysay waxaan nidhay markay geeri dhacdo qof nagamadii dhinto kun faraha nalaga gubo kunkaa faran ha la siiyo reerkii geeridu ku dhacday marka ugu sarreeya director generaalka ilaa ka ugu hooseeya kunkaa faran geedka go'an buu ahaa qofba lama weydiinayn maasha allah wax weyn bay ka taraysaa reerkii baa loo geynayay ta kale hadduu ninku reer leeyahay ooridiisaan siinaynay hooyadiina maanu siinayn aabihiina maanu siinayn waxaan siinaynay xaaskii uu ka baxay marka dambe iyagu siday doona ha u qaybsamaan laakiin anagu waxaan gargaaranay sariirtii uu ka tegey baan gargaaranay awlaaddii uu ka tegey baan gargaaranay xeerkaa baan dhiganay sidaa baanu ku soconay dhibaatooyin way naga hor yimaadeen laakiin waan u dilo dhignay oo waxaas waxay noqotay wax sidii ku hirgala kuna meel maray lixaad waxaan garanay oon isniray dadka danyaraha ah ee boorka u shaqeeya ee islaamka ah eenan tegi karayn xashka inuu boorku xashka ka bixiyo yaan haddana weydiisanay markaan taalanimna boorka wuu naga ogolaaday wuxuu ogolaaday inuu 5 qof sanadkii ka bixiyo xashka 3 raga iyo 2 dumara laakiin hawl waxay ka timiday annagu waxaan nidhi kuwa ugu miishaaro yar uguna meesha intii ugu badnayna meesha ka shaqeeya hala siiyo siday usoo kala horreeyeen ugu miishaaradoduna u kala yar tahay labadaas shuruudood baan annagu dhignay rag badan oo madaxdii way noo yimaadeen waxay yidhahdeen waxaas waa khalada kuwa ugu shaqo fiican ka dhiga oo sanad kastaba kuwa ugu shaqo fiican aan dirno waan diidnay ilaahayna tiibuu noo rumeeyey sidii baana ku dhacday qof mas-uulii kama qayb gelin qof miishaaro badanlii kama qayb gelin waxaan ugu talagalnay miskiinka marka inaan gelino qalbiga ummadda jacaylo ay gartaan inaad meeshii ka shaqaynayeen wax u ogolaatay kuwii matalayena wax u tareen oo hawsha keeneen marka sidii bay ku socotay aniga oo kale weliga kama qayb gelin inaan idhaahdo dee waxbaan keenay waxaa layga siiya ma odhan kamana qayb gelin maalkaygaan ka tegay xashka xooggaygii baan ka tegey ilaahay baa ii barakeeyey misharadeeda igu filan laakiin ninkii itaalka yaraa baan u eexanay yaan u damqanay ilaahayna uu noo rumeey waa naga socotay taasina saabay noogu dhacday tii toddobaad waxaan dhiray qofka shaqaalaha ee bukooda ee ismiida lagu daweyn kari waayo amba dhakhtarka weyn lagu daweyn kari waayo ee xanuunkiisu u baahda in dibadda loo diro waa in loo gurmado shaqaaluhu waa nin danyar xooggiisu maalaa xooggu maalay hadduu ka bukooday dee garab buu u baahaya inag la soo kiciyo u baahaya taana boorka ilaahay ka jijaasiya uu naga ogolaaday inuu wixii dhakhtarka ku baxaya uu bixiyo 150 isaga uu bixiyo 50 kalena ninka shaqaalaha bukooday laga gooyo oo si suurtagala oo maskaxgala oo qofkana dibayn looga gooyo in badan taabaan iyadana sidaabanu ku guulaysanay shaygaasna waxay ahayd tii toddobaad tii sideedaad waxaan samaynay maalin waxaan soo garab maray waxaa la qoray shaqaale securityga la yidhaahdo cusbaabaa la qoray shaqaalahaas waxay inay albaabka boorka ka celiyaan qof kastoonan xaq u lahayn inuu boorka soo galo oonan haysan kaarkii boorka lagu gelayay dadkana askar maahay qori ma sitaan rasaas ma sitaan waa qof shakhsiya laakiin calaamad yaroo boorka direyskii boorka ah buu xidhan yahay dadkii dee doonay inay boorka galaan ee yoomiyaha ka doonanayay way la dagaalamayeen way caayayeen way riixayeen waan soo albaabkaan marayay waxaan arkay dhirtiiba taalaan arkay guddiga ila shaqaynaya baan u sheegay
maalintii dambe directeerka u tagnay baan arrinkii ka hadlay waxaan u weydiiyey in la siiyo wax la yidhaha prime risk dhibtaa ay la kulmayaan in deef lagu siiyo oo wax loogu siiyo markaa 15 kun baa miishaaradoodii loogu daray ay qaadanayeen ee kontraaga ku saxeexeen 15 kun baa loogu daray oo ilaa maanta socota oo dadkaasi qaataan oo anagu aragtideeda iyo daafaca xuquuqda dadkan daafacana daraaddeeda ku keenay taasina tii 8aad baxay tii 9aad hawsha ka qabanaa waxay ahayd waddanka idin buu xeerku ka yaalay waxa weeye qof kasta oo hawlgabeen noqda oo saacadii waqtigii uu shaqada ka baxayay gaara waxa la siin jiray 3 bilood oo miishaaradiisii ugu dambeysay miishaaradii ugu dambeysay yaa 3 bilood laga siinayay oo loo yiraahdo prime de départ à la retraite tii waxaan nidhay waxaan tusnay directeurkii boorka waxaan tusnay inay wax yar tahay in dadka qaarkood waxba u tarin marka in la biiriyo 3 bilood oo kale lagu daray oo xagga 3 bilood ka xeer ahaan anagu waxaan ka dhignay 6 bilood yaan dadkii uga dhignay ilaa maanta 6 bilood baa dadka boorka markay baxayaan retraite 6 bilood baa la siiyaa oo miishaaradoodu ugu dambeysay waxaana keenay saanjikadii boorka oo ku dacwooday tii 10aad waxay ahayd 9aad oo ka maalin waxaa nagu dhacday adeerow adduunyadani waa hawl weyn waxa loo baahan yahay in la garaadka iyo kaska la adeegsado waraaqad baan dhulka ka helay maalin waraaqadaasi waxay ahayd aariteed ahayd waxay sheegaysay 69kii bay soo baxday waxay sheegaysay qofku markuu 20 sano shaqeeyo shaqaale dawladda ah aba shirkadaha inuu fasixiisa konjooga 2 sano ku biiraso hadduu 25 shaqeeyana inay 4 cisho ku biiraso hadduu 30 sanado shaqeeyana inay 6 noqonayso isla markaa waxay sheegaysay sharcigaasi wuxuu sheegayay haweenka shaqaalaha ee caruur da'doodu 14 sano ka yar tahay haysta inay iyaguna imihiiba 2 cisho oo ku helaso sanadkii fasaxa iyadoo kula dhaafin 30 cisho amba ina odagu shaqaale in badan 30 cisho ma dhaafso kullayba cisho baa ugu biiraysa taana markaan waraaqada helay waan qornay waan dhignay waa la sameeyay iyadana marka waxaan go'aansanay oo aaminay boorku inuu wax kasto xuquuq shaqaaluhu leeyahay oo si wanaagsan loo weydiiyo inuu ka jawaabi jiray hadduuna dhaqaaluhu saamaxay waxa jiraan weydiisanay oo dhaqaaluhu boorku saamaxay qasam ahayd takala shuruudda naga dhaxaysa waxay ahayd inaan 2 bilooda mar la fadhiisano maamulahaas ugu sareeya boorka oo tusno waxaan u baahanahay isaguna waxa uu na weydiisanayo hadday shaqaaluhu shaqada ka habsaamaan hadday hore uga tagaan hadday dhibaato jirto oo noo sheegan anaguna waana ka bixino sidaabaan ogolaanshaha baan ku wada shaqaynay sidaabayna naga noqotay haddaba waxaa dhacday waxaa la yidhaha carab iyo labadiisa daamba way isdiidaan wuxuu ilaashadaa dantiisuu ilaashadaa 2 arrimaan haddaba madaxdii boorka isku diiday marka boorka madaxdu mar inta badan wuxuu ahaa nin reer Djibouti oo aadan axmed ducaale loo oranayay markii dambana dadkii dubay matalayay bay ahaayeen marka aadan axmed ducaale arrin baan xabad baan isku diidnay xabadaan isku diidnay waxay ahayd nin shaqaale ah yaa nood loo sameeyey waxaa la yidhi 6 bilood dabadeed ninka baxaya hawlgabeenka noqonaya yaad bedeli doontaa adigu ee 6 biloodna la shaqee si waxa uu qabanaya aad u baratid markay 6 bilood dhamaatana adiga hawshii bedeli doona markay hadda toole ka hadhay bil ka hadhay shaqadii baa ninkii meeshii laga eegay nin kale la keenay nin kale yaa la keenay anagu waxaanu aragnay inay xaq daro tahay ninka madaxa ah meesha xukumay isagu wuxuu ku macnayn karaa shaqadii ka soo bixi waayay wuu shaqayn waayay wax uu sameeyay waxbuu ku andacooday laakiin anagu waxaanu arkanay kol haddayna taqsiir ku dhicin kol haddayna digniin la siinin kol haddii wayna la eriyin kol hadday cabashi jirin qoraala haddayna jirin oo ninkaa ku dhacday inay xaqdaro tahay waan socday waxaan u tagnay directeurkii boorkaan u tagnay waxaan idhi misle directeur xaqdaradaa baa dhacday dee waana ka xunnahay wuxuu idhi maamulka meesha u daaya shaqadooda iyagaa garanaya ka daaya inaad ma arkaysaa caqabad ku noqotiin dadkaa shaqaday wadaan iga daayo arrinkaas sidaa ku daaya annaga noolama ekin xeer waxaan u arkanay inay xaqdaro tahay waan soconay wasiirkii markaa joogay yaanu tagnay ilaahay u naxariisto wuu dhintay yaanu tagnay waxaan idhi mudane wasiir sidaa baa dhacday directeurkii baa loo yeedhay anigana waan fadhiyaa waana la weydiiyey su-aashii wuu ka jawaabay aniga waa ka jawaabay isagu siduu daafacayay buu sheegay anigu waxaan sheegay inay kor hadduu ninkaas wax taqsiirii ku dhicin oo qoraal ahi inay waxa kale tahay xooga sheegasho ninka wasiirkii ahaa aniga arrinkaygii buu u arkay inay run tahay
ninkii directorka waxaa lagu amray inuu isla middlekii sameeyo noodkii nominationka ahayd ee ninka lagu magacaabaya inuu shaqadii qabto yaa la sameeyey markaa saabaan u garxilnay markaa dhulku ma wada madoobeyn iftiina wuu jiray markii labaad waxaan isqabannay ninkii dib iwood u shaqaynayay ee director generaalka ahaa lig driver loo odhanayey yaan arrin sharciyaan isku qabannay arrinkaa sharciga ah wuxuu ahaa berigii 1973 la xidhay kanaal Suez ee convention collective heshiiskii shaqaalaha iyo dadka ay u shaqeeyaan la sameeyay juin 73 waxa la yiri shaqaalaha boorka ee ruulamaanka ku jira sababtoo maraakiib badan ma jirtee lacagtoodu ha noqoto 36 saacadood oo lagu darbiyo 25 boqolkiiba yalla lagu heshiiyey oo waqtiga duruuftii waqtiga taalay baa keentay haddaba wixii ka dambeeyay 89 markii Ethiopia iyo Eritrea islaayeen ee wixii Ethiopia ku socday boqolkiiba 90 ay boorka Djibouti martay waxaa timid inuu shaqaalihii terminal containerka shaqadoodii badatay markii hore waxa la oran jiray discontinue marka sharciguna discontinue-ga wuu sheegayaa oo qof markuu shaqo joogto ahayn sida maaragtay dadka istiraanka qabto oo kale markuu shaqo joogto ahayn xeer buu leeyahay oo discontinue markay shaqadu joogto tahayna waa continue taabaan isku qabanay directorka boorku nina qoontiisu fiican tahay nin xeerka yaqaan ahaa wuxuu naga yiri wareeda sharcigu sidan buu dhigayaa wuxuu sheegayaa inay shaqaalaha boorku discontinue tahay de sharciga soo bedela hadda sharciga soo bedeshay anigu waanu hoggaansamay sharciga oo waxaan isiin doonaa wuxuu sharcigu dhigayo laakiin hadda sharciga bedeli weydeen de anigu waxaan ku qasbanahay inaan sharcigii uu wuxuu dhigayo nisiiyo waa garta marka waxaan samaynay waxaan nidhi hadda toolo wax noo furan ma jirtee waa inaan garifno maracas baan xiranay waxaan nidhi 3 cisho boorka dhexdiisa shaqaaluhu maracas bay xiranayaan 3 cisho kadib haddii nalala hadli waayo oo wax yaga arrinkayga la eegi waayo anagu waan gariifi doonaa waxaa la yidhaahdaa waa inaad taqaantid sarkaagu intuu leeyahay colkuna waa inaad garitid xaggaad ku guulaysid xaggaad ku gujabisid taa markaan samayna waxay dowladdu ku qasbanaatay inay arrinkii soo gasho waxaa loo yeeray directorkii waxaa loo yeeray sandikadii waxaa loo yeeray wasiir kaloo isaguna khibrad u lahaa xagga shaqaalaha laba wasiir nin nabadgelyada boorka ku shaqala xagga xeebaha oo isaguna kolonel ciidamada ahaa iyo sandikadii iyo director generaalkiiba yaa loo fadhiistay wasaaradii boorka ku shaqalahay minister transport markaan xaggaa iskugu nimidnay waxaa la yidhi sandikaday adigaa dacwiyaya oo sheeganaya waxa hadal baa la yidhi hadalkii sandikadii baa qaadatay oon anigu magacayga ku hadlayay oon anigu horjooga ka ahaa waan hadlay waxaan idhay boorkaan ka shaqayno dekedaan ka shaqayno shaqadaan qabanno ninkana maamulaay aad buu ugu faraxsan yahay intaasoo goor buu ku soo qoray maqaalada waddanka ka soo baxa inaan shaqaalo fiican nahay inaan dad mas-uuliina nahay inaan hawshana loo dirtay ka soo baxnay haddaba waxaan weydiisanayaa sharcigu wuxuu dhigayaa meesha ugu hoosaysa eena u dhaafi karayn buu dhigayaa laakiin inuu wax isiiyo ma diidane inuu wax noo biiriyaan doonana kol hadduu shaqadayadii ku faraxsan yahay inuu noo biiriyo uu wax ka fiicanna siiyo isagu wuxuu doonay inaan idhaahno dowladda sharciga naga bedina waxaan kaasa laakiin waxaan garanay inaan isaga badada soo dhigno xaggan dowladda la dacwi lahay isagaan la dacwino waxna kol haddaan shaqaalo fiican de wax noo biiriyo markuu arkay sidaa u dhacay ninkii wuxuu weydiistay wasiiradii qaaliga ahaad uu yidhi aniga iyo sandikadu waan israacanaa waxaan iskaga noqonanaa boorkayga anagaa heshiina waxaa dhacday aniga iyo director generaalka waa gaarigiisii baa soo raacay labadii kale gaarigooga soo kaxaysteen boorkii baan wada tirnay markaan ofiskiisii fadhiisanay uu 2 buna noo dalbaday wuxuu iga yidhi ninkii arrinkan kaala taliyey ii sheeg shaqadan qorayaaye markii hore wuxuu iga yidhi ninkii kula taliyay ii sheeg maxaa gacankeeda kuma fahmay wuxuu iga yidhi arrinkan anigu dibadaan ka joogay aniga ma ahayn waxa is haystay shaqaalihii boorka iyo dowladda is haysatay sharciga isku haysteen in la bedelo waxaan aniga ay dhex keenay meesha waa nin aqoon leh oo dee khibrad leh oo ma arkaysaa sharciyaasha yaqaane qofkuu yahay shaqadan qortay ii sheeg anigaba hay badbaadiyey waxaan ka eray mas-uul director guddiga shaqaalaha ayaa u xil saaray inay dadku uga fikiraan fikirkayga keenay inaan sidaa waxaan u aragno siina sidaa baan ugu guulaysanay marka labadii shay in dibadda ula baxnayna sidaas baan u guulaysanay
xaggaa baana kaga baxaya wixii aan gudaha ka qabsanay kolka intaasi waa wixii gudaha idinka qabsoomay weeyaan oga qabsoomay intaan soo xasuusan karay ee maanta kula wadaagay marxaba maxaa dibadda idinka qabsoomay boorka dibaddeeda maxaa idinka qabso xiriiryo intee leeg baad samayseen haddaba markii aan aragnay inay hawlaha iyaga boorku si wanaagsan u socdaan inay ismaqal wanaagsan naga dhexeeyo inaan waxyaalihii aan dalbano oo idil aan ku guulaysan waxaas dhigay war heede maxaa dabarka nagu xidhay maxaa dadka kale waddanka joogee madaxda ana aad ugu tegi weydeen tallaabadii ugu horreysan qaadna waxay noqotay inaan u tagnay societe immobiliyaarkii Djibouti abubakar xagga maan ka salaamaya isagana yaan u tagnay waxaan idhi war annagu haddaan shaqaalihii matelino shaqaalihii boorka waxaan kaa rabnaa inaan aqalina siisid lacagtii loo baahnaan aan bixino aanan shuruudihii buuxino soddonkaa aqalna shaqaalaha iyaga aad nasiisid oo meel qulaata wada degno si boorku marka wax degdeg yimaadaan uu isaga laftigiisu meeshaan u yimaado dadka uga qaadi karo oo dadku isku taageersadaan wuu naga yeelay 30 guri baana la siiyey 30kii guri waxaan siinay intii ugu xagga shaqada ugu raagsanay ugu ansiyansanay inta ugu badan shaqaysay ee aqalana lahayn aniga oo shaqaale yar hoosaha wasiiraha yar soo hadlay saxan qof iyagu doonayaan aqal u siiyo laakiin may dhicin qaarkood waa xaq bay u lahaayeen kii xaq u lahaa way dhacday ima odhan aniga siinay laakiin xaq u lahaa xaqiisii buu helay kuwii kalena ma helin marka sidaa baan taana shaygii ugu horreeyeen tallaabadii ugu horreysaan qaadnay ahayd si aan ugu guulaysanay markii dambe haddana waxaan ka qaadanay haddana 40 aqal Luxembourg kii labaad waxay noqotay tallaabadii labaadan qaadnay waddanka markii mushaarooyinku la joojiyay dhibaatooyinku dhacday baanankii waxay joojiyeen inay amaah bixiyaan hadda toole dadkii meel ay amaah ka qaataan ma jirin waa fikirnay waxaan nidhi war maxaa tala maxaa la samayn karaa waxaan u tagnay directeurkii boorka waxaan ka nidhi monsieur le directeur marka qof shaqaale wuxuu shaqeeyo eridid xaquuqdiisa baanka u shub oo ha siinin qofka koonkiisa baanka ku shub meel kale inay mari waan ogolay waan sameeyaa maxaa jira waan samayn waxaan u tagnay baanka pensiyiga ninkii xukumay baan u tagnay bal baan weydiisanay waxaan idhaa ururka shaqaalaha ee boorka wuxuu rabaa inuu kula kulmo waana loo ogolaaday waxaan ka nidhi monsieur annaga waxaan doonaa inaad bixiso credit consommation-gii amaahdii aad dadka siinaysay ay wax ku qabsanayeen yaan rabnaa inaad bixisid wixii maal haystaa iyaga iyo wixii baaxmushir samaynay waa gooni laakiin shaqaalo wixii ahaa ee weliba gaar ahaan boorka waxaan rabnaa inaad furtid dee wuxuu aniga see lacagteeda igu soo noqonaysaa waxaan ka nidhi qofka ha siinin lacag ka badan xaquuqdiisa lacag ka badan ha siin qofka shaqaalaha ah boorka ha tago ha lagu soo qoray intuu xaquuq leeyahay waxa lagu odhan siciid wuxuu leeyahay 1,200,000 buu leeyahay haddii maanta la eriyo waxaad siisaa milyoonka sii markaas adigana marka ninka haddii la eriyo oo shaqada ka joogsa intaas 1,200,000 adigaa lagu soo subayaa marka hadda milyoonkaagina waa qaadan 2,100 waad u dayn marka isna wuu naga ogolaaday marka qaybta labaadna sidaa baan ku dhamaynay laakiin si wanaag weliba dadkii waddankoodii baa ka guulay yaa ka faa'iidaystay dadka finanska ka shaqeeya ka faa'iidaystay dadka shirkadaha kale ka shaqeeya ka faa'iidaystay waxay noqotay wax qaranku leeyahay fikirkii baa bilaadhay oo qarankooda shaqaalaha qarankooda ka faa'iidaystaa shaqadu keenay bay ahayd taasina sida waxoogaa kaamerada yar hagaajiso waa kaha waxay noqotay taasina wax shaqaalaha boorka ay keeneen oo dadka waddankuna shaqaalaha waddankuna ka wada faa'iidaystay tii saddexaad waxay noqotay inaan markaan dadkeena duruufta dadkeena eegnay annagoo waxay ahayd waxaan u xil saarnayd inaan shaqaalaha iyaga noloshooda sare u qaadno inaan kabno inaan wax la qabanno baan u xil saarnay markaan dadkii u fiirsannay waxaan dareennay qof kasta oo shaqaalaha dhexta amba kuwa hoose ah hadduu qof ka xanuusto caawa oo kale inuunan haysan wax aqalkiisa lacag uu ka qaatuu farmasiiga ku tagay inuunan haysan yaan aragnay waxaan samaynay waxaan u tagnay ninka lahaa farmasiida landamadan sacad doctor sacad baan u tagnay waxaan ka helay doctor sacad waxaan ka helay doctorow haddaan kuu keeno 2,200 oo qof oo kuu noqota adiga uu dawo kaa iibsada bal ka warran dawladdu wanaagsan waxaan heli karin ha client ha weliba aad fiabilisiisid oo ma kala tegin 1,200 oo qof waa dad badan kuu keeno bal ka warran maxay wuxuu waxaan la heli karin haddaan helno adiguna maxaad ogolaanaysaa wuxuu yidhi 10% yaan ka dhimi 10% laga dhimo lacagtii lagu iibsanayay ninka lacagtiisii sitaa
ee iibsanaya marka laga siiyo 3,000 aniga waa in laga siiyo 2,700 ha Soomaarkasi yaa marka la amaahiyo ee bisha la iga goysan doono 2,700 bay igu noqonaysaa taa baan kula heshiinay tii maanta waxay gaadhay haddana caliyow ina Djibouti oo idil shaqooyinka oo idil in aragga ku camal falaan waa fikir aad u wanaagsan laakiin anaga keenay anaga damqanay anaga ogaanay inay dadka dhibaato haysato laakiin dhibaatadiina kaga jawaabnay sida wanaagsan kuna faraxsan maanta inuu ilaahay hirgeliyo arrinkaas oo ay ummaduna ka wada faa'iideysato marka tii dibadana saddexdaa shay baan ku koobay caliyow marxaba dabcan marka wax la qabanayo had iyo jeer waxaa jira wanaag dhinaca kalena maaragtay carqaladaa jira saddexdii shay ee maad aragtay ay isleedahay waa ugu wanaagsanayd oo waad samayseen ambase maaragtay si wanaagsan bay idinku hirgashay isleedahay waa saddexdee markaad isku soo koobtid waad mahadsantahay adeer cali oo waxa weeyi saddexdii shay markaas aan is odhanay way fiicnaayeen oo si wanaagsan bay niigu dhacday aan is odhanay waxay ahayd iguna farxad badnayd aniga xaggayga habeen anagoo aad joogna oo nin inan nagamida oo shaqaalaha yaga ahaa ilaahay u naxariistay isaga badana maxamed oo dhintay yaan aaskiisii tagnay inankaasi wuxuu lahaa 2 xas buu lahaa 2 guri oo kiraana wuu gelayay 2 guri oo kiraana wuu gelayay dumarkiisu ma shaqaynayn isaguna dee wuu baxay oo ilaahay u naxariistay wuu dhintay anagoo aaskii dul joogna waxaan isnidhay war heedhaha rag baan nahay ninka hanu iibina aqal dhintay dumarka ka hadhay aqal hanu iibin yaa ka fikirna xaggii baan iskula qaadanay waxaan hirgelinay in ka yar bil baan arrinkii ku dhammaynay waxaan u iibinay inankii dhintay xaaskiisii koowaad ee hore waxaan u iibinay aqal weliba nasiib wanaag aqalkay gelasay oo la iibinay baan u iibinay marka taas waxay tustay in ururku markuu niyad fiican yahay ee uu hagar baxo inuu wax kastaba qaban karo marka waxay gelisay farxad aada inaan anigoo xalay geeri joogay inaan bil dibadeed aqal iibin karay dhudhunka dhaqaalaha aan ku iibin karay waxay ii noqotay farxad iyo dhiirigelin xasuusmayna waa igu reebtay waan gartay ilaahay iyagana ka shisay siiyo dadkii ka faa'iideysanaya ilaahay markaas ha u barakeeyo tii labaad waxay noqotay cali farxadda gaarka igu reebtay waxay noqotay nin mas'uul markaad u tagtay tiraahdeed shaqaalaha ka hooseeya waxa nagu sameeyay wax naga qabo way fududahay laakiin ninka mas'uulka markaad ka leedahay adiga dambi galay oo wax naga eriyay ka soo noqo way adag tahay aad ingiriisku waxay yidhaahdeen shit never go up bay yidhaahdeen ma ogtahay way tahay waxaa dhacday nin shaqaale ah oo dhudhugley wata oo dariiqii mamnuuc ahaa socda yuu ka soo horbaxay direktaarkii boorku wuu qabtay wuxuu ka yidhi kaarkaagii keen hadduu kaarka u dhiibi lahaa wuu taksiiri lahaa wn been buu sheego wuxuu ka yidhi kama shaqeeyey boorka kaar ma lihi shaqaalihii baa saa yidhi ninkii beejooda wataa yidhi sekiritagaa timida ninkii waa la garanaya inuu boorka ka shaqeey kaarkiisii baa laga soo saaray gaalkii baa loo dhiibay dembigii labaad muxuu noqday been buu ii sheegay bay noqotay gaalkii lig driver baa ahayd wuu rawaxayey wuu noqday biiroogiisi buu ku noqday wuxuu soo sameeyey waraaqadiisii eriga wuu eriyey wuu eriyey ninkii la eriyey iyo dhowr qof oo shaqaalaha gurigaygii yimid waxaa la yidhi sidan baa dhacday oo maanta waa la eriyey waxaan idhi wuxuu ilaahay naga badan ka yeelanaaye caymadooda iska hoyo oo iska qaboojiyo bal waan eeganaaye 3 cishaan ka maqnaa 3 ciisho aniga inamadii kale aan wada shaqaynayna waa fikiranay aakhirtaankii gaalkii baan u tagnay director generaalkii ofiskiisii tagnay markaa wuu yidhi maantana maxaad odhan wuxuu iga yidhi maxaad odhan buu yidhi waxaan ka idhay waxaan maantana kaa odhani waxaad u fikirtay gaal koloneela oo ciidamadii faransiiska ah oo ina yaroo aabeeleeyihi oo medicine samaynaya doctor samaynaya oo 18 bilood yimid inuu service militaarkiisii sameeyo oo u yimid meesha inuu ciyaaro iska kaftamo yaad mooday baan ka yaad iska dhigtaan ka wuxuu sidaa ma ahine anaga waxaad xukuntaa shirkadii waddanka Djibouti ugu weynay waxaad tahay buur bal waxaad aragtaa baan ka adiga buur kugu soo dunto sideed noqon lahayd garaadkaagu waa halaabaya
ninkan markaad la hadlayseed ka soo horbaxday wuxuu is arkay isagoo camala isagoo shoomeera caruurtiisii oo gaajoonasa isagii waxaasoo idil baa ku soo dhacday wuu naxay kolka isbadbaadi marka buu taabaa keentaan ka era inuu waxba kala garan waayo ma ahayn kaftan ma ahayn ninkii macnihii markaa dhowrka isku celina wuu ii gar qaatay ninkii shaqadii buu ku celiyey haye shaqadii yuu ku celiyey maasha Allah waxay ii noqotay farxad weyn sababtoo ah ninkaa kugu xigaa wax sameeyey markaad ka leedahay isagu wuxuu doonaya inuu ku tuso inuu nik dhexaadinayo laakiin markaad isaga ka leedahay adigaa dembiga leh adigu qaraarkii aad qaadatay ka soo noqo wuu xumaayo markaad ka leedahay laakiin si wanaag xaggaa buu ilaahay wax nooga bidhaamiyey iftiinkii xaggaa nooga baxay baa keenay inaan gaalkii madaxiisii ku soo celinno inuu qofkani ka naxay aynay ahayn inuu waala ama dabada yar qabto ka toocsada aynay ahayn waan gartay waa tahay tii saddexaad waxay haddaba noqotay inan reer Jabuutiya oo mas-uula oo xukumayey qaybta shaqaalaha reesus iimeenka xukumayey shaqaalihii caayey oo edab daranay edab daran buu caayey markuu caayay ninkii wuxuu qaatay qaraar oo wuu eriyey tii kale lamid tahay tii kale unbay lamid tahay isaga waa ninkii shaqaalaha mas-uulka ka ahaa markaa wuxuu saxiixi jiray avans yaroo bishii dadka la siiyo avanskii buu dido kiina wuu xaytamay shaqadii buu ka eriyey markuu shaqadii ka eriyey dee annagu waanu dhaminaa dee annagu waxaan ku shaqa lahayn wixii la eriyo iyo wixii waaweyn waxa kale delegayaasha ka shaqaynayey labada cishi iyo afarta cishi iyo delegada personeelka ku shaqa lahaa okay ninkii baanu nimidnay mas-uulkii shaqaalaha ku shaqa lahaa ee anagana nala shaqaynayey ee wixii dhacaba aanu la teginay waxaan damacnay inaan nidhaahno warniyo hode waa lagugu khaldamaye maanta dulqaado oo mas-uul baa tahay sidan yeelo waxbaan niray wuu judo wuxuu yidhi anigu waxaas waxaan ka soo noqonayo maaha anaga war kaleanu hor yimidoo ninkan shaqaalihii la eriyo lug baa go'an oo shaqada ku gooday oo miishaanta maaragtay elektriga ehe wax lagu gooyo waxaanta lagu gooyo elektriga ku furantay lug bay goosay lug laayahay xaggan bay tiisi taalaa ninkan kale ee mas-uulka ah waxaan diidanaa inaan nidhaahno maanta waan kula dagaalamanaayo ama waa kaa gar helanaayo ee xumaan ku dhacda isaga uu hadhow tolo dadka dhibaato u geystana waan diidanaa oo isagana waxaan doonanaa inaan si walaalnimo oo qabow oo nabada aan isagana ku raali gelino nin lagu khaldamaatee noo dulqaada inaan nidhaaman doonanaa intii waxay naga qaadatay 3 bilood waxaan xitaa ninkii la eriyey waxaan ka nidhay warbal dadka faamiyigiina u tago ninka reerkooga ha loo tago ha la baryo oo sidaa shaqadii marka anagu waxaan diidanay oon kala dhowranay xumaan sababtoo anagu ma ahayn dadka inaan xumaan isku gelin anaga waxay ahayd inaan dadka wanaag ku soo dhaweyno wanaag ka dhex dhalino arrinkii markuu socon waayey uu ninkii ku adkaystay inuunan arrinka ka soo noqonayn baan u tagnay waxaan ka nidhay niyahow arrinka adigaan kugu haqdhowranaa adigaan sharaf kaaga dhiganaa adigaan diidanaa inaan ku weydaarano ninkan inaan ku soo celina shaqada naguma adka dee dembi baana galanaa haddaan anagoo karana aan ku soo celin weynana abaanu dacwi weyna inaanan karin be haddaan u dacwi weynana dee annaga aakhiradaydii baan wax yeelanaa waxaan noqonanaa dad weji caabuda oo adiga ku caabuday oo miskiin kaloo xaq lahaana xaqiisii lumiyaan noqonanaa mana rabnin inaan aakhiradaydada wax u dhinna laba kala dooro inay adiga sharaftu kaa timaado ood ninkaa soo celisi iyo inaan anagu dacwinoon maantaan dacwadda bilaabana bari kuma suganin maantaan taganaa maantana waan soo celinana hadduu ilaahay idhaahdo labadaa kala dooro ninkii wuxuu yidhi meeshaa doonisin mara anigu ninkaas ma soo celinaya iniga nii taalaa waan wareegnay directeerkii boorkaan u tagnay ninkan 5 sano u hadha shaqada wuxuu qaadanayay 60,000 yay mishaaradiisu ahayd ma ninkan chefkan wax eriyey ninka la eriyey waan gartay mishaaradiisu 60,000 bay ahayd 5 sanana way u hadhay retreatkiisii markaad 5 sanadood waa 60 bilood waa 60 bilood 60 bilood haddaad 60 ku darbisay waa 3 milyan iyo 600 waa 3 milyan iyo 600 directeerkii bankaan u tagnay waan u sheegnay waxaan nidhi monsieur ninkan naftiisii meeshan buu ku waayey lug baa go'an waxa u hadhay inaad siisidii waa 3 milyan iyo 600 iyo lacagta aad ka bixisay dawada ismiiga ee qof kasta oo shaqaalaha laga bixiyo marka haddaad qaadan weydo dib u celin weydid dee annagu intaan u qabana avokaa yaan maxkamadda kula maranayo waxaan kuu weydiinaya 30 milyan siisi 33 kala dooro 33 kala dooro dee wuu kala doorto ninkii wuu ku celiyey
ninkii uu ku wuu ka celiyey celiyey ninkii kalena ha dee wuxuu u arkay in la dhibaateeyey waan dhowr goor baan ka raali gelinay laakiin anagu aakhire qofna caabud qofna dil idinku xeerka ayaad marteen xeerkii baan marnay kolka saddexdaasi waa saddexdii maaragtay aad iyo aad kuu farax gelisay markii aad qabatay maxay ahayd saddexdii xaqiiqdii maaragtay saddexdana waxay ahaayeen sidaabay ahaayeen saddexdaa saabay ku dhammaadeen imanka waxaan galanaa saddexdii kale ee iyaguna ma arkaysaa barhkood waxaan qabtay anigoo shaqada ka maqan anigoo aanan ahayn matalaha shaqaalaha boorka aanan ahayn yaan xabadda ugu horeysa qabtay haye waxaa dhacday nin baa shaqada laga eriyey ninkaa shaqada laga eriyey wuu bukay ismiigaa la jiifiyey 5 habeen buu ismiiga jiifay markuu 5tii habeen ka soo kacay yaa la soo siiyey malaa 3 cisho fasaxa wuxuu keenay meeshuu ka shaqaynayay waxaa la yidhi maad soo sheegin xanuunkaaga oo waan ku erinay boorka waxa u yaala 7 cisho oo aan caddayn lahayn hadduu qof maqnaado in la eriyo haye ninkii waxaa lagu qaaday xeerkaabaa lagu qaaday shaqadii baa laga eriyey waan gar anigoo meeshan ka shaqaynaya jooga yuu soo maray gaal rasuus iimaanka joogi jiray mas-uulka ah xagga shaqaalaha iyo xeerasha shaqaalaha ayaa soo maray wax kalaan ka sheekaysanay anu markaa maan ahayn saandikada kuma jirin markaas waan ka maqanay saandikada haye gaalkii baan wara sheekaysanay markaan wixii kale ka sheekaysanay su'aaladeedii kale nolosha caadiga aan ka baxnay waxaan ka iray haddaad dadka ka dheregteen oo shaqaalaha doonaysiin inaad yaraysiin dee u caddaada xeerarku way niyo ogol yihiin oo xeer soo saaro oo dadka sidaa ku kala dhima laakiin qof dhakhtar jiifay oo bukay oo buugga inuu bukay ku qoran tahay erigaagu waa xeer dariyo xoog sheegasho eh ka daaya xoog sheegashada wuxuu iga yidhi saas ma dhici karo suu iga yidhi maba eri karna qof caynkaasa dee waxaan ka yidhi waad erideenoo saabay u dhacday dee wuu socdayoo nin maraykan ee xukumayay terminaalka gabadh ajaanibiina waxay ku shaqo lahayd laanta shaqaalaha iyaduna mas-uulka ahayd wuu u tago wuxuu ka yidhi waxaad samaysaan khalad waxaad nagu samayseen dembi baad na geliseen qof aanan u qalbin inay eriye baad nagu khasabtay inaan erino riborkiinu wuu khaldanaa qofkii imakaan soo celinaya gabadhii meesha ka shaqaynaysay way ka baxday boorka maalintii baa ugu dambaysay shaqadii way ka tagtay way ka cadhootay gaadhigay wadatay boorkii bay kaga dhex tagtay marka ninkiina sidii baa lagu soo celiyey marka farxadda ay arrinkaasi gelay waxa weeye marka ilaahay qiimeeyo qawlkaaga ee ilaahay kimad aad tira dad ugu aboobatay oo ku badbaadinayo bal ninka xaaskiisii caruurtiisii naftiisii baan badbaadiyey kimadana ilaahay baad badbaadisay waan gartay kolkaa intaasi waxay ahayd intii kugu muhiimsanayd maaragtay ee ku farax gelisay inaad qabatid maxay ahayd saddexdaad is leedahay way ku murug gelisay oo waad awoodi kari weyda adoo wax walba isku dayay horta waa nasiib wanaag boorka waxyaalo xeer darihii kama dhacin haye oo iminka waxaan kuu sheegay xaggan igu qoran nin shaqaale ah nin baa macallin buu ahaa nin baa macallin ahaa wuxuu macallinka ahaa randa dad muxtarima oo reer Djibouti odayaal muxtarima oo reer Djibouti oo waqtigay fadhiyaan randa tegi jiray yuu ninkaas u adeegi jiray kuwii waxay go'aansadeen inay ninkii soo qaadaan macallin buu ahaanayay inay boorka qoraan oo miishaaradii uu macallinimada ku qaadanay miishaaro u dhigata amba ka badan ay boorka ka siiyaan ninkii boorka keeneen markay boorka keeneen waxay u tegeen directorkii boorka waxay yidhaahdeen ninkaas shaqo noo qor shaqadaad noo qorisina miishaaradiisa ha noqoto markay ugu yar tahay category kaasee 84,000 ha noqoto waan gartay wuu ka ogolaaday ninkii wuxuu ku qoray wax la yidhaha shifreer statistic la yidhaahdo yuu ku qoray directorkii ninkii wuxuu yidhi shaqo tag ninkii reesus iimaanka joogay yaa amar la siiyey waxaa la yidhi ninkaas meeshaan ha ka shaqeeyo miishaaradan ha qaato haye ninkii wuxuu tagay directorkii wuxuu ka yidhi mas-uul director xeerku caynkan ma dhigayo 9 qof baa meesha ka shaqaysa 9kaa qof la shaqaynaya waxay qaataan 7,60,000 isaga 4,80 la siin maayo oo xeerku ma dhigayo wuxuu ka yidhi aniga amarka bixiyey waxaan ku siinayaa amar ninkaasi u soo samee haye ninkii uu soo socday wuxuu yimid xafiiskiisii wuxuu sameeyey 10 decision 10 arrin 10 waraaqadood oo dhigasa 4,80,000 iyo waraaqad 7,60 yuu sameeyey
ma dhinaca kale u rogay ha da directorkii buu la tagay wuxuu ka yiri masuul director sagaalka kalena ninka waa la shaqay yihiin de iyagana dalaci oo afrijiita uga dhig saxana adiga leh amba 10 kamis afrijiita ka sax amba waxa saxda xabada 760 ka ninkaas wuxuu ilaalinay waxa la yiraahdo travail égal salaire égal okay dadku hadday wax qoraato war qabanayaan inay isku miisaaran noqdaan weey waarun ha marka waxay kamid tahay tan farax gelisay marka ninkaasi syndicalism ahayn laakiin xeerka shaqada uu hayu garanayay wuu daafacay waxa la sameeyay ninkii waxa laga dhigay 760 ninkii markii hore afrijiitanka lala doonayay miishaaradiisi waxay noqotay 760 isagana waxay samaysay way dhiiri gelisay ninkii maanta wuxuu boorka ka yahay chef de service statistique buu ka yahay waa ninkii markaa lala doonay 280 laakiin hoos loo soo dhigay ee xeerka la waafajiyay xeerkii baa la waafajiyay wuxuu gartay in xeer uu socoto de xeerkii uu hoggaansamay waxbuu bartay wuu dadaalay wuxuu noqday mas'uulka koowaad ee statistika boorka ee maanta yuu yahay marka farxad bay gelisay waxaan isla meesha u shaqaynaysid hadday sidaa xeerkeega u dhowrayso de waa ilaahay mahadiidi dhulka kale waxaas wax laga sheego amba lagu ay jiraan malaha ma ahayn laakiin boorka wax ka jiray marka waxay kamid tahay waxyaalaha ifarax geliyay maaragtay aan farxadda ka qaaday Soomaalikiisi waxa ii hadhay malaha waxa weeyaan maxay ahayd arrimihii aad isku dayday ku qabsoomi waayay ay adiga oo maaragtay dareensanaa inay xaq tahay haddana aad awoodi kari weyday horta hal iyo mid ha noqotee horta sida runta haddaan ilaahay been loo sheegayn labadii goore boorka la diiday la iga yiri waxaas ninka directorku iga yiri waxaas ma dhici karayso aan aniguna aaminsanayn waxaas aniga iyo dadkii ila shaqeynay aan aaminsanayn waxaas dhici karayso de anaga soconay wixii ka sareeyay u tagnay ee gartina anagu helnay okay marka waxaan oran karayaa arin kale oo dhibaato igu ahaa waa run xabad kale oo dhibaato igu ahayd oo personnel ahayd baa jirtay markii directorkii inta badan la shaqeeyay ee Axmed Aadan Ducaale inta badan la shaqeeyay markii la bedilay ee lagu bedilay dibigooda shaqada qabsatay yaa war xuma tashiil baa war xun u geeyay oo ninkaas iyo reed Dubay oo malaha maran ka dhaxeeyay iyay dad uga dhigeen inaan anigu Dubay wax u sheegaa amba arrin naga dhaxayso ninkii oo dhibaataysan oo cadhaysan oo gariiraya yimid xafiis kale oo meel aan ka shaqeynay agteeda yaan ku kulannay maxaan kugu sameeyay maxaan ku dhibay maxaa dhibtan keenay baba waxyaalo aan ka suugay waa iga naxisay sababtoo ah qof aan xushmad badan u hayay buu ahaa wanaag badan aan u hayay war shaqayn badan naga dhaxdhacday in aan isogolayn wax dhibaato weligay aan ka arag oonan anigu hadii la iga yiraahdo dadka wadanka ugu jeceshay waayo dadkan anigu wadanka ugu jecelahay sababtoo ah waxa aan soo sheegay waan qabanaan leenahay isaga laantii ma qabaneen sida dadka kale oo shaqada looga yeeray ama loo dhibaateeyay baan loo dhibaateyn lahaa laakiin wax wanaagsan ma dhaxmaray ninkii baan loo kala yeeshay yaa la igu soo diray waa ii dhibtay aad bay ii dhibtay laakiin nasiib wanaag waxaan u sheegay woona iga rumaystay inaan anigoo miir qaba maan anigoo waalan aanan waxba ku samayn karin intaan noolahay oo iga aqbalay arrinkaas baa igu adka arrimada igu adag ee meesha igu soo maray yahay waan ku maqlay cali marxaba halkaas maanta waxa aad ku muujisay haddii xeerka la maro sideeda haddii xeerka loo maro oo shaqaaluhu ayagu xeerkooga ay maraan in mar walba ayaga ay guusha helayaan ayaad halkaa maanta aad ku xaqiijisay gaar ahaan maaragtay waxa weeyaan waa qaybta boorka haddii aan su'aal ku weydiiyo inta badan waxyaalaha maad aragtay dhici kara amba dhacay waxa weeye maaragtay waxaa la yidhahdaa kolkol xeerka waa laga tallaabsadaa oo haddii shaqaalaha uu qaniino nin meel sare ka socdo way adag tahay in maaragtay ururada shaqaalaha ambase madaxda shaqaaluhu ay ku soo celiyaan maadaama arrinkaas uu yahay arrin ayaga iska daya directorkoogaba dhaafsan xitaa wasiirkoogaba dhaafsan arrinkaa maxaa kaga jawaabi karaysaa
maadaama experience muddo badan ku soo jirta arrimahan waxa weeye cali oo horta dadku way sheegaan arrinkaas aniguna maanta xaggan oran maayo waa been laakiin anigu wax qurataan aaminsanahay boorka kama dhicin boorka gudihiisa kama dhicin in la yiraahdo hebel dawlad baa haysata amba hebel baa haysta amba heblaaya haysata ee shaqada ka eriya kama dhicin dadka bilaadanka maalin markay wax dhacaan waa la jamciyaa wax badan baa laga dhigaa aniga in ka badan 20 goor yaa la iga yiri booliis baa aqalkaaga hor joogay jandaran baa aqalkaaga hor joogay waa lagu doonayay brigaadka heblaaya laga doonayay anigoo yaabsano firiirsan oo isla xagee lagu geeyay amba maxaa lagu haystaa isla yaan gurigayga imanayay iyadoona waxba jirin marka dhibaato badan dadku badanka iyaga madaxooga ka sameeyay dhibaatooyinka waxay aaminayeen ina dhibaato loo geysanayo waa run dad meelaha qaarkood meelo muhiim ah jira waxyaalo kale oo mamar eeg imaka anu waxaan ku sheegay directorkii baan qabanay waxaan aragnay waxa uu sheegaya inuu naga gardaran yahay maracas baan xidhay haddana marada cas xidhan oo griifi lahaa dawladdu way soo dooni lahayd oo secretary economic iyo wadanka iyo ma arkasta socialkii baan yaa dib imanaysa amnigii baa khalkhal gelisa lagu qaadi lahaa mamnuuc ma hayna la griifku furan yahay oo waa griifi karta laakiin waa inaad xuquuqdiisa dariiqiisina martid oo adiguna digtoonaatid marka waxaan aaminsanahay horta wax kastaba ee baa qora dadka dhibaato badan way gaadhay shaqaale badan oo la eriyay way jirtaa inta kale annagu haddaan shaqaalehinahay waxaan fursad siinay oo meesha baaldahaba ka xidhay ninkii maamulaha ahaa waxa shirkadaha dawladda xukumo oo idil xaggii aan la xisaabtami lahaynan isku day lahayn siyaasiyiinta iyo inuu noo dhaxeeyaan maamulaha waxaan samaynay maamulihina waan dagaalanay siyaasiyiintiina way noo qabteen marka shaqaalaha dhibta ku dhacday waxay ahayd laba qolay la dagaalameen oo ka itaaroon iyo mar quraata la wada dagaalameen okay laba awoodood bay mar quraata la dagaalameen mar quraata la dagaalameen sababtii waxa weeye ninkan maamulaha ah meeshan loo dhiibay inuu maamulo de wuxuu jecel yahay inuu maamulo sida isagu doonayo yuu rabaa inuu maamulo adigu haddaba markaa tahay ninkii dadka matalayay waxa kugu muhiimsan maamulada maxaad kaga hortagaysaa adigu waxaad u baahan tahay shirkadani inay shaqayso inay sii jirto inay maal keento inay hore u marto inay dadka wax barto yaad u baahan tahay haddii lagu yidhaha baritolo shirkadda sidii warshadii caanahoo kale haddii lagu yidhaha way kacday oo 100 inuu ka shaqaynaysa ay camal beesho faa'iidada heshay faa'iido maad helin de faa'iido maad helin camal aan baa timintay marka shaqaalaha mas'uuliyiinteedu waxay iloobeen ambaan oran karayaa yaraysteen inay la dagaalamaan ninkan maamulka hayay inta ninka siyaasiga ah raadinayaan marxaba adeer barnaamijka waan soo gabagabayn doonaa hadduu ilaahay idhaahdo 1 daqiiqo maxaa tala ah oo ku soo koobaysa waxaan oranayaa hadduu ilaahay ka dhigo ilaahay wax khayr qaba iga dhawaaqiyo waxaan leeyahay dadka naga dambeeya ee hawsha matalaada shaqaaluhu ay u timid iyagu doortay qofba laguma qasbo horta qofku isagay ka timaadaa isagaa isku arka inuu shaqaalaha ula shaqeeyo matali karayo dadkaasoo aad u dugtoonaada waxaad doonaysa in ha noqoto danta shaqaalaha inayna noqonin dan gaara waxaa laga helaa danta guud baa laga helaa danta guud markay hagaagto dantaada gaarkuna way hagaagayso marka waxaan ku waanin lahaa inay dugtoonaadaan ina cabsidana la iska daayo waa la yiri wuu lahaa iyo waa la soo socdaadana la iloobo ina la isku dayo ina sharcigana xaggaaga jiro had iyo goor waxaa sharci oo kale shirkadda jaarka hadday wax samayso oo dan xus samayso shaqaalaheega warda tamba way u samaysaa ana ii samee baa kuu taala oo iyaduna waa sharci imaka taaaska oo kale dee dadka meelaha shaqaalaha oo kale way oran karaan warda boorkuba qofkii ka dhinto wuu aastaaye noo aasa marka dhexdiina wara hadla shira is-ogaada danta shaqaalahana ka shaqeeya waxaan kale oon odhanayaa aniga dhibaatada dhacday een caawad ka xumahay inamadii aniga ay bedilay ee aniga dabaday ururkii shaqaalaha qabtay shaqadii waa laga wara eriyey iyagoona haynin 3 bilood 4 bilood iyagoona shaqadii haynin yaa shaqadii laga eriyey waxaa keenay kii ka horeeyey ee dagaalka qaatay yay u arkeen inay xal tahay ninkii ka horeeyey
ee dagaalka aaminay isaga waa hore shaqadii laga eriyey ee ka sugaya inay ma arkaysaa hay'adaha caalamiga ee adduunku inay dowladda Djibouti soo galaan wax u xukumaan yay hawaawigiisii bay rumaysteen oo wadadii hore mareen waa sidii shaydaankan waxaana laga leeyahay war dariiqaas waa dariiqa cayaanta lagu galayay iska daayo waan gart waxoogaa hakad ayuu ka galay Saciid Maxamuud Xasan barnaamijkii gabagaba ayuuba ku jiraa barnaamijka waanu soo gabagabeynaynaa hadduu alla idhaahdo daawadayaalkaasi waxa uu ahaa Saciid Maxamuud Xasan oo ahaa guddoomiyihii shaqaalaha boorka ee dalka Jamhuuriyadda Djibouti haddana howlgab wax badanna noo iftiimiye oo sheegay maaragtay in maaragtay wadooyin badan oo la maro ay jiraan ayada oo maaragtay sharciga la raacayo guulihii uu ku gaadhayna waa ku nooga soo sheekeeyay barnaamijkan hadduu alla yidhaahdo wixii su'aalo ah eed ka qabtaan ambase dadka dhegaysanaya hadday mas-uuliyiin yihiin iyo hadday shaqaalaba yihiin wixii su'aalo ah ee ka qabaan barnaamijka waxaan jecelnahay inay wixii maaragtay fariinta noogu reebaan boggeena Jib Media barnaamijkii intaas ayaanu ku soo koobi doonaa waxaa idin daadaheynaya barnaamijkan anigoo Cali Casoowe ah waxaan idin leeyahay saas iyo nabadgelyo